sanadku marka uu ahaa 1950kii marka uu dhamaaday dagaalweynihii labaad ee dunida Talyaanigu dib u soo laabtay gumaysigii Soomaaliya ayuu aasaasay ciidankii ugu horeeyay oo militari oo Soomaaliya leedahay kuwaasi oo dhamaa 3 batalyan ama 2000 askari balse 5 sano kadib nasiib darro gumaysigu u baabi'iyay ciidankii Soomaaliya oo dhisay wuxuuna ka soo reebay tiraad u yar sanadii ku dhawaad 60meeyadii ayaa hogaamiyay maamulkii daaqiliga ah ee dalka ka jiray Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise gumaysiga wuxuu ku qasbay in dalkan ciidan lahaan karin isagoo aasaasay 2000 askari waxaana lagu soo daray ciidankaasi ciidan dhama 3 xurin oo booliska xilligaasi kadib ayaa ciidankii militariga oo lama 3000 askari oo koonfurta ka soo jeeday waxa lagu daray ciidan iyana dhama 3000 askari oo Ingiriisku uu sameeyay ka hor bixitaankiisii gobolada waqooyi ee Soomaaliya isku dhafka ciidankaasi ayaana la sheegaa inay ka dhalatay inta barada iyo halku-dhigyada ay ciidanka leeyihiin ee Soomaalida loo raadiyo orahyo afka Soomaaliga markii ugu horeysay ka hor qoritaankii afka Soomaaliga maadaama uu gumaysaha labada dhinac dhaxal siiyay luqadiisa Ingiriiska iyo Talyaaniga marka laga hadlayo orahyada darajada iyo waliba tababarada sanadku marka uu dhamaa 1964 sano kadib xorriyadii Soomaaliya ciidanka dalka oo gaarayay markaasi ilaa 5000 askari ayaa babac dhigay dagaalkii ugu horeeyay ee dalka xorriyadiisii lagu soo qaado hujuumkaasi oo ka yimid dhinaca Itoobiya ayaana waxa lagu tilmaamaa ama lagu micneeyaa in Itoobiya markaasi u arkaysay Soomaalida inay yihiin qoomiyad dalkeeda u dhalatay oo ku caasiyoobay balse ciidankii tirada yar ee Soomaalida ayaa iyagoo wato hub aad u yar waxay u babac dhigeen isla markaana xadka ku celiyeen ciidankii tirada badnaa ee Itoobiya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaana xilligaasi dalalka reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka ka codsay inay qalabeeyaan ciidanka militariga Soomaaliya balse waxa la sheegay in ra'iisul wasaaraha dhabarka u jeediyay Mareykanka carad darteedna ayuuna codsigaasi hordhigay midowga Sofiyeeti ogolaansho ayuuna ka helay ra'iisul wasaaraha midowga Sofiyeeti iyadoona Soomaaliya loogu yaboohay in loo tababaro loona qalabeeyo 35,000 askari oo ciidanka militariga waxaana ahaa balanqaadka midowga Sofiyeeti midow ka dhabeeyay waxaana sanadihii uu soo dhawaa dagaalkii ay Soomaaliya qaaday sanadkii 1977 oo ciidanku dhamaa 35,000 askari sidaas darteed ayaana saraakiishii soo martay xoogga dalka ay ku sheegeen in taariikhda dhismaha ciidanka Soomaaliya ay qayb weyn oo ku lahaa midowga Sofiyeeti balse dhinaca kale haddana burburiyay waxa la soo gaaray 1977 oo Soomaaliya in badan u dhisaysay ciidankeeda si Itoobiya qasab looga soo celiyo dhulka Soomaalida oo Ingiriisku u hibeeyay Soomaaliya si doontaba ku lumisay waxay lumisay saaxiibtinimadii Ruushka in ka badan 13 dal oo ku mideysnaa ururka Warsaw oo Ruushkuna ku jiray ayaa garab istaagay Soomaaliya ciidankii Soomaaliya ayaana la isugu tagay waxaan la wiiqay awoodda ay lahaayeen ciidanka Soomaalida xilligaasi ciidankii militariga Soomaaliya intii ay jireen waxay galeen laba dagaal oo dibadda ah oo kala dhacay sanadii 1964 ilaa 1977 hadda dawladda federaalka Soomaaliya waxay doonaysaa inay dib u dhisto isla markaana ay dib u soo celiso awoodda ciidanka Soomaaliya ku lahaayeen geeska Afrika balse dadka siyaasadaha oo darsa ayaa sheegaya in dawladda Soomaaliya qaabka hadda ay wax ku wado aysan ku dhismaynin ciidan militari oo awood leh Cabdiraxiin Cabdullaahi Honkebel TV magaalada Muqdisho